hore waxaa laynagu yidhi ilowsho dhowah maamuul bah wixii xasuuq ka dhacay dalkan ee raadkiisa qoyanaa ayaynu iska ilownaa waa ogtihiinoo maalin waxaa la xusiyey yurub ay xusiisay France lagu xusiyey dadkii ka dhintay lagu xasuuqay dagaalkii koowaad ee adduunka maanta waxa weeye 27 Julaay waa maalintii dadka gasiiro lagu xasuuqay ee isir ahaanta inta guriga lagala soo baxay reer ahaan loo dilay waa soddon guuradii weey waa jiraan xasuuqo badan oo ka dhacay Hargeysa Ceergaawo meel kasta ka dhacay laakiin kan taariikhdiisa ay hayaan maalintan waxay ahayd 17 waxay ku soo beegantay soo maanta markabkii xoolaha ee ka baxay Berbera oo ilaa hadda xadnimo yahay waxay isweydiin leh iyo xasuuqa ka madaxaha yaa fuliyay waxa fuliyay Maxamed Siyaad Barre maanta xoolaha Soomaaliland hal xadnimo yaa yiri waxa weeye in farmaajo waxa weeye history repeats itself waxa weeye adeerkii waa Maxamed Siyaad Barre samawgi maanta xabadiisa weyn la soo gaadho hay maciishadii ayuu inagala dagaalamaya waadan shalayteeda lahaa markuu madaxweyne soo degay war dadka kala saara waxa leeyahay Soomaaliya kala saara xasan sheekh baa ahaa madaxweyne sheekh xasan baa ahaa sheekh shariif baa ahaa wiligeena iyo alheen maciishad Soomaaliland dadka lagama dagaalamay maanta waxa weeye waxa taasina tusaysaa in si gaar ah oo farmaajiyo Kureeda oo meesha ku haysta in la dagaalamaya waxa la yaab leh laakiin ninka wasiirka ee la yiri wax doonaya inuu neefka xoolaha oo ka qaato $1 waday 3 milyan xoolaha xiraan $3 milyan buu soo xareysanaya taas waxa ku tusaysaa gruubka meesha fadhiya inay yihiin dad xaalufinaya oo doonaya ummadda lacagteeda ursadaan badii bay iibiyeen oo ogtihiin Norwegian iyo laga iibiyay shisheeye waa ogtihiinoo ciidamo shisheeye keeneen marka waxa weeye gruub u soo talagalay inay Soomaali haddana dagaal sokeeyo geliyaan iyo isla aarsada xaalufiyaan dhaqaale urursanaya laakiin waxa isweydiin leh inagu inamay xoolahayna bana Jabuuti maraya geelina waa ku jajabaya buuraha Jabuuti arigeeni baa Jabuuti oo ogtiin meel aan xoolo ka dhoofi karayn marka waxa taasina tusaysaa inaan ahayn dad jiraba in maanta la haweysto ila xoolo lagu yimaado waxa leeyahay shacabka reer Soomaaliland halgankii buu bilaabmay hays dhiganina khilaafka dhexina joojiya haddaynu burburno ma jiriyo reer kaliya noqonayo gob gidiga waxaan walayn wada adoonsanaya waxa la soo celinaya saacadii 1988 kii farmaajo soo celinaya waxa leenahay dadkan waxa jaala ahayn ee USC ee dhibaatada iyaga keenay marka midida u dhiibteen ragii shalayto dalka ka xoreyseen ciyaalkoodii waliba ciyaalkoodii aga xoreyseen waxa leenahay dawladeena iyo shacabka Soomaaliland waxaynu shilin haysano wayna xoog isku geena ciidamadeena dhisnaa wayna ciidamada la dhisaa haddaynu baqtiino xitaa wayna cudud samaysanaa saane mar dambe never again bay dhahaan yahuudu inaan genocide xasuuq dambe nagu dhicin in mar dambe dhulkeena la sheegan haleenahay kuwa dibadda ka soo qaylinaya WhatsApp-kada qabiilka kaga hadlaya waa one family baan ahayd one family Soomaaliland هلا جوجيو وعلى هاي مامك محمود سلامة انتو سكو كان درو انو كلي تجي ولا حبد انو بسوريين وسكو كان دل dadku qabiil ahaan ku beer la xawsanayaan waxa inaan ku rari doon inaan ku dajin doon yaan ku rarin dabbayna gelinayaan niman taariikhda Soomaalida ee talaadishka reer miyiga ahayd waran lagu ogaamayn naaba haysan politicians baa laakiin
khiyaamada khariif bay ku hayn laakiin dagaal markaan waxaan leenahay dadka tolaaye leh tolaaye ku kaxaysanayaan tolaaye inaga isku tola dadka isku deegaana isku dhaqana isku taariikh ay was dhalay ayaa bal igu yeedho intay dhaleen iyo intaa reer Soomaaliya isku eeg waxaan leenahay qolada banaadir waan ka xumay in 150 milyan ee laga qaado muqdisho 50 milyan waxa qaadata dad aan u dhalan oo madax iska dhigaya ayaa mushaar u qaata inta kale diyaarada lagu raaca meel kale cashuura ma jirto muqdisho la cashuura ila lagu dilaa ila lagu dhoofaa ila lagu soo shaqoola lacagtiina ha bixinina nin aan wadkiisi aanu awood ku lahayn iyo magaaladiina awood ku yeelan gilgisha maxamed siyaad baraka gilgilateen afar inay kuriyo inay ka gilgilataa ma leh saasan leh dadkeena ha kaceen dhalinyaro kaca nacaska xuna inta lacag yar siiyo wajab ka soo caytamay Soomaaliya in ka qabaabay iska celiya maanta waxa weeye waa maalin murugale waa maalin murugale 30 sano ka baadi dadka deegaanka dagana horaan ugu shaaxan wareer garowe dad doon ma waa dul doon waanu sheegayna kuwa magaalada sanaagta bari waa dadkaasi ma dad doon horeer dooniya waa dul doon way soo 20 kilomitir bay soo galeen dhulkan de arrintaas waxa weeye wax xil saaray markii horeysta dadka deegaanka leh in dalku dhulkooda daafaca dawladda gacan siisa arrintaas waa laga gilgishaa weeye meel kasta waa naga soo galay meel kasta waa la shaqsado waxay ilaahay wax jira ma haba leeyahay laakiin waa tan sheego dabar la cunaa shaf la cunaa malihin haddaan soo jeesano haddaan soo taariikhda dib u raaca weligan guulayna gama helin dagaal laano inuu dadka ma doondoono dadka ma xumeeno quudkayna siina weliba kii ku diliyaan waxa sooriyana ya marka waxaan leenahay Soomaaliya ha toosto dawladuna ha shaqeyso madaxweynaha uu maqan yahay xoolii baa taagan wasiirkeena xoolo uu maqan yahay waa wasiirkii xoolaha iyo badda laba wasaarado waaweyn ee la isku riday and they are not functioning ma shaqeynayaan xasan waa in dadku u shaqeyso wala dagaalamaya wala tartamaya waxa ka sugaysa inuu farmaasho faataxay inuu akhriyo ma ku soo baxay وانا دغالميا قلت اوغي باد كريدي نينكي كورسكا u diray kii waxba aqoonay kii inaan kufsaday kii laga sii daayo wala Mareykanka loo diray mamlakadii baad ka dumisay marka ma buu soo celinaya hada maxaad uga cabanaysaa dala tartan wala ficilta hada dawladda